boqortooyadii ajuuraan waa magac ka mid ahaa quwadaha ugu saameynta weyn ee bariga Afrika, laakiin si aanan ku filin ayaa loo faalooday buugagta taariikhda caalamiga ah. Qarnigii 17aad markii ay qaaradda Afrika la taalaadhacisay burbur siyaasadeed iyo dagaallo sokeeye, ayaa dhulka Soomaaliyeed laga aasaasay dowlad Islaami ah oo leh nidaam xooggan, sharci cad iyo han siyaasadeed. Boqortooyada ajuuraan waxay ahayd boqortooyo ku dhisan diinta Islaamka, kuna salaysan xeerar sugan, ilaalisana kheyraadka dabiiciga ah sida biyaha iyo dhulka beeraleyda, kana shaqeysa danaha dadka. Haddaba qaybtan waxaa si qoto dheer u eegi doonaa sidee bay u dhalatay boqortooyada ajuuraan, yaas aasaasay, halkee ayay kaana qaaday, maxay kaga duwanaan jirtay dowladihii kale ee waqtigeeda. Intaa u gudgelin qodobadan, waxaa ka codsanaa haddaad channelka cusub tahay inaad subscribe dhahayd, aad iyo aad u mahadsantahay. Deegaanka ajuuraan iyo meeshii ay kaana qaaday. Boqortooyada ajuuraan waxay kaana qaaday ama ka aasaasantay koonfurta Soomaaliya, gaar ahaan dhulka ay maraan webiyada Shabeelle iyo Jubba oo ahaa kuwa ugu muhiimsan ee Geeska Afrika. Deegaankan wuxuu lahaa dhowr sifo oo muhiim u ahaa curashada iyo dowladda xooggan. Sifooyinka waxaa ka mid ahaa biyo joogto ah. Webiyada ayaa siin jiray beeraleyda fursad si joogto ah ay u falan karaan dhulkooda. Sifada labaad, dhul barwaaqo ah. Dhulku wuxuu ahaa mid hodan ku ah nafaqada iyo wax-soo-saarka. Sifada saddexaad, qarashka nolosha oo hooseeyey. Reer miyiga iyo beeraleyda waxay si sahlan ku heli jireen biyo, cunto iyo adeegyo. Sifada afaraad, istiraatiijiyad juqraafiyeed. Ku dhawaanshaha boqortooyada dhinaca badda waxay suurtagelisay inay la xiriiraan ganacsatada caalamka. Markii ay beelaha deegaanka ay kala maqnaayeen oo aysan jirin dowlad dhexe, ayaa beesha ajuuraan si tartiib ah u bilowday inay dhisto maamul dhisan oo ay ku salaysan tahay diinta Islaamka. Haddaba yaa aasaasay boqortooyada ajuuraan? Boqortooyadu waxaa lagu aasaasay beesha ajuuraan oo ka tirsan beelaha Soomaaliyeed ee Muslimka ah, lagana yaqaano taariikhda deegaanka Geeska Afrika. Ajuuraanku waxay si xoog leh ugu lug leeyihiin faafinta diinta Islaamka, dhismayaal istiraatiiji ah, xeerka shareecada Islaamka. Haddaba faafinta diinta Islaamka, culimada ajuuraan waxay ahaayeen wadaado leh aqoon diin ah oo aad u qoto dheer leh. Dhismayaal istiraatiiji ah, waxay dhiseen ceelal, tuulooyin iyo xarumo dhaqaale ama xarumo maamul. Xeerka shareecada Islaamka, boqortooyadu waxay u dhaqmaysay si waafaqsan shareecada Islaamka oo ahayd tiirka nidaamka iyo cadaaladda. Haddaba boqortooyadu waxay si degdeg ah ugu fidisay dhulalka webiyada ilaa iyo xeebaha Baraawe, Marka, Kismaayo, iyagoo dhisay nidaam dowladeed ka heer sareeya nidaamka kale ee deriska la ah ee dowladaha kale. Maxay kaga duwanaan jirtay boqortooyadu dowladaha kale ee deriska la ah? Boqortooyada ajuuraan waxay lahayd sifooyin dhowr u ah, kana soocan boqortooyinka kale ee Afrika iyo Carabta. Waxay khaas ku ahayd kow, maamul adag oo xirfadeysan. Boqortooyadu waxay ahayd ama u qaybsanaysay gobollo iyo maamul wakiilo. Qorshe sare oo xakameynaya canshuurta, nabadgelyada iyo cadaaladda. Diinta Islaamka ayaa kaalin weyn ka ahayd go'aan qaadashada maamulka. Haddaba waxay kaga socneed oo kaalinta labaad kaga jiray ilaalinta biyaha. Ceelal qiimo leh oo ay qoday ama ceelal qiimo ah oo aad u qoto dheer qaadkoodna weli la adeegsanayo ilaa maanta. Tiknoolajiyad biyo xireen ah oo horumarsan, taasoo muujinaysay aqoon farsamo. Biyaha ayaa ah laf-dhabarta beeraleyda, nolosha iyo horumarka. Haddaba waxay kale kaga socneed ciidamo joogto ah, askar si gaar ah u tababaran oo sugta amniga gudaha iyo dibadda, ciidamo badeed iyo kuwa dhulka oo ka hortaga duulaanka shisheeye. Sidoo kale talisyo ciidan oo laga sameeyey magaalooyinka muhiimka ah. Sidoo kale waxay kaga socneed ganacsi aad u baaxad leh. Doonyo ganacsi oo la yimaado badeecooyin Indiya, Yemen, Tanzania ayaa dowladdu ama boqortooyadii aad ugu soo degi jiray waqtigeedii. Alaabooyin la kala iibsado, xoolo, malab, dhuxul, harag iyo waxyaabaha laga sameeyo dhirta ayaa ahaa qayb ka mid ah ganacsiga boqortooyada. Xiriir ganacsi ee dibadda ayaa ahaa si weyn ugu xoojiyey dhaqaalaha boqortooyada. Xiriirka ay la sameyn jirtay dibadda ayaa asana si weyn uga qayb qaatay dhaqaalaha boqortooyada. Haddaba doorashadii caqliga badneed iyo diin iyo dowlad ku dhisneed, mid ka mid ah waxyaabihii boqortooyada ajuuraan ka dhigtay mid waarta ayaa loo ixtiraamayaa waxay ahayd sida ay diinta iyo dowladnimada iskugu dhafnaayeen. Madaxda sare waxay ahaayeen culimo Islaam ah, halka boqorku laga tixgelin jiray dowladda iyo dhulka. Xukunka waxaa sal u ahaa shareecada Islaamka iyadoo lagu xukumayay cadaalad iyo daacadnimo.
dadka shacabka waxay si fudud u aqbali jireen talada maadaama ay ka aaminsanaayeen hoggaan diimeed. Boqortooyadu waxay ku abuurtay kalsooni iyo nabad bulshada dhexdeeda, taasoo horseeday kalsooni iyo horumar joogto ah. Haddaba ugu dambeyntii iyo gunaanadkii qaybta koowaad, bilowgii wanaagsanaa ee awood weynta boqortooyada Ajuuraan waxay tiir dhexaad u ahayd nidaamka siyaasadeed ee koonfurta Soomaaliyeed. Waxay la wareegtay dekedo istiraatiiji ah, waxayna noqotay xoog aan sahlanayn in la jebiyo. Inta aynan u gudbin qaybta dambe ee taariikhda Ajuuraan, sida ballaarinta dagaaladii ay gashay iyo sababihii burburkii, waxaa muhiim ah in aan faahfaahino awood kasta oo weyn waxay ka bilaabataa asaas degdeg ah. Ajuuraan waxay ahayd tusaale oo cad muujinaya in dowladda Soomaaliyeed oo xooggan ay dhici karto marka ay ku saleysan tahay diin, nidaam iyo cadaalad maamul sax ah, inay dhismi karto ama istaagi karto dowlad islaami ah oo Soomaaliyeed. Haddaba qaybta koowaad inta ayaa kugu soo agmeerayaa. Waxaan ka codsanaa mar kale channelka haddaa ku cusubtahay inaad subscribe dhahid, lana soco qaybta xiga. Adigoo mahadsan.